السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومركل يا عشرين امتحانات اوتوديسك اوتوكاد 227. اوكي هدي انا اوتوكاد كيني سو فرونو دبل كليك maanta waxaan ku soo qaadan doonaa tool muhiim ah oo la dhaho polar and array okay iyo arc. marka inta sameyn waxaan rabaa inaan unitka aan soo bedelo maanta unitka ku shaqeyno meter ay noqon doonaa. okay barta length tape ay ku leeyahay decimal ku deyso. for example hadaan decimal ka bedelo architectural waxaad aragtaa inuu bartan sample output keeno noqonayo inches waxyaabahaas. hadaan ka dhigno for example scientific for example hadaan ka dhigno architectural wax walba isbedelayaan. marka inagu decimal kaas aan isticmaal doonaa. precision kana waxa weeye imsa god ayaan ku tusaa pointiga wixii ka dambeeya. for example laba god ayaan rabaa. xagana scale yani unit ka aad isticmaalaysid. for example meter ayaan soo doortay centimeter waad aragtaa. okay xagana angle ka decimal degrees baan ku tusaa maxaan ku degree minute second ma ku tusaa adaa soo kala dooran. precision haday rabtana waad ku darsan. okay xagana angle ka hadii clockwise ku jiido waxaad aragtaa inuu dhinaca kale kaaga soo akrinayo angle ka. hadii tigta ka qaadana 45 ayuu igu deynayaa yani xagga caadiga soo maxaan dhahay sidan buu soo wareejinayaa. okay andaho polar array saan u faano aan soo qaato line. for example line kan aan click saa u dhahay xagga waxaan ka dhigay ilaa 3 meter right click enter. dabadeedna polar array baan ku dul jiiday. polar array yana dhihin sorry okay array ayaa la dhahaa toolka laftiisa modifying tool kamida array di marka ku dul jiido xagana history rectangular iyo polar array. marka polar array da iyo rectangle ka waxa u dhaxayaan arkina rectangle kan ku horeyno. rectangle ka waxa weey inaad shay aad meel ku badso. for example array da waxay ka saacidi kartaa markaad sameynaysid ground floor mesh yani reinforcement birta markaad muujinaysid sawirkaaga rabto inaad ku muujiso birtii la gelinayay dhismahaaga si aad shaxde aad u sameyn lahayd meshkii oo kale ay ka saacidaysaa. marka insan rows ka kaaga dhigaa ayuu ku leeyahay ya rows maxay noqonayaan kuwan okay chief horizontal ka columns kuna waa vertical ka. marka intii loo dhaxaysiinayo kuwa row offset kuwan hoose imsal isku dhaxaysiinaa. marka for example hadaan rows ka 5 ka dhigo on column kana ka dhiga maxaa dhahay 4 ka ku deysto on dhinacana inta offset ka labadiiba u dhaxaynaya. for example aan ka dhigto 0.5 oo kale okay 0.5 haye okay iga masaxka ama 0.5 caadi ugu qor waan arki doonaa angle kana wuxuu yahay. for example hada select object to andano imika click markaan dhahno hadda kaliya waxay noo samaysan vertical bis hatu noo badin doonaa. click markaan dhahay enter hadaan dhaho okay on okay dhaho kan buu ii badiyay oo ka dhigan duplicate ayuu ku sameeyay ama koobiyo badan ka kiciyay labadii line inta u dhaxaysa waad aragtaa. for example hadaan line kala samaysto ama kan inta tiro okay line kala to isna hal meter aan saa u sameeyo okay under oh sorry okay sorry and line is so qad 1 right click enter space and caliya bartan sidan right click enter oo soo dhaweystay array dadna dhinacna waa 4 kan waa maxaan ahay 5 dadna waxa loo dhaxaysiinay waa 0.5 select objects kan iyo kan baa rabaa labadaba waan doortay enter ayaan dhahay dadna okay hadana waxaad aragtaa inuu ii sameeyay mesh yani shax okay kana vertical ka waxa ka dhignay 4 2 3 4 kana waxa ka soo dhignay 5 2 3 4 5. for example hadna rectangle samaysto okay or rectangle ka dhiga each side maxaan dhahay each side 1 okay and then array di galo waxa xarabnaa in angle ka ku tuso. for example waxa rabaa rows ka 5 ka igu daa dhinacna 5 aan rabaa. for example inta la loo dhaxaysiinayna waa hal meter baa wanahay ka soo qaad okay tusaale ma ku qaadana cabradan muhiim ah okay 45 degree baan ka dhigay waad aragtaa inay xaggan isbedeshay oo 45 angle ka naga siinayo. okay haddii select object soo dhaho on soo doorto right click ama enter dhaho okay maxaad aragtaa wixii isku dhawaaday. okay soo iska keen dhawaan maxaan u baahanahay the distance ee aanu dhaxaysiino offset ka inaan soo bedelno offset key. for example 3 aan ka dhigo okay 3 then select object click okay enter hadii wali isku dhow yihiin okay way imika kala fogaadeen. marka taasi waxay ka dhigan tahay rectangular array di ayaan xaga kaga baxaynaa. hadda waxaan rabaa in aan ku tuso maxaan dhahay polar wax kale ma ahan iyada waa circular in wixii kugu soo wareego. for example total number of items xagan ayaad ka dooran doontaa numberka iyo waxa rabtaa items ka
inta xabee la soo wareejinaya angle-kii ku buuxsamayaan. For example waxaan rabaa in xaggaas 6 xaba ii fuusho angle-ka uu igu soo wareegayna 360 rotation buuxa circular-kii ayaan rabaa inuu soo buuxiyo. dadna muxuu sameyn 360 ayuu 6da u qaybin doonaa. dadna waxa soo bixi doona 60. okay يعني wax ka dhiganta uu qaybsanayaa 6dii xabo ayaa yani 60kii angle-kiiba yani maxaan ahaayay sida markuu u wareego 60 ka 60 ayuu ka soo qabsanayaa. okay for example then select object dhano and object-igi doorano right click and okay dhano waad aragtaa inuu u soo wareegay laakiin way isku dhow yihiin offset-koogii mayna soo sixin. for example asagu maxana bowlerkan markaad sameynaysid wuxuu kay kale yani kaga duwan yahay waxa dooranaysa center point-gaaga waa inaad doorato mar walba. for example hadii aan cancelo on soo doorano line-kaas aan barta ku samaysano right click enter dadna aan hadana dhinaca iyo dhinaca sida dhahno on center point-gaas aan u soconaayo bowlerkan soo doorano dadna number-kan ka dhiganayo waa 6. for example 8 hadan ka dhigo xaga isbedel 45 ay noqonaysaa uu qaybinayo 45 kiiba angle-kiiba yani igu soo wareeji 8 xabaa raba saasa tiri. okay imka 6 xabaa ka dhiganaa ku socelina enter then select object. okay object-iga ayaan doortay enter baan dhahay dadna xagan center point-igi buu ku weydiinayaa dadna center point-igi big center point click dhe dadna center point-igi waa ka okay click dadna okay ada traado hadalka center point-igi waa ka rotation-kiina uu ku sameeyay oo inta xabaan ku qoraneed 6 xabo dadna 360 buu say noogu soo wareejiyay. taana waa sabaa tan kale maxaan total number of items number iska maxaad u baahantahay iyo angle between items tan aad specify gareynaya inta u dhaxdhaxaynaysa. for example intii baad sheegi dadna markaad imika ka soo qaado hadan kan oo kale ka dhigno kan oo kale 45 kana aan 8 ka dhigno xagan isbuuxin doontaa 315. okay 9 oo kale dan ka dhigno marka adig kan angle-kii xaggii hore aad ka sheegaysay oo isagu number-iska intaad ku qorto uu ka qaybsanay aad qaybinta sheegaysaa kan kalena saa u gal saasi lamida kanna waxa weey number-iskii aad deynaya angle-kii lagu fiil gareynay baad sheegaysaa 360 mid walba inta u dhaxaynaysa. for example 35 factory tiradii marka xagga isaguna kaasiin inta xabay ku noqonayso gibi wada practice gare kana waxa weey center point-iga aad rabto inaad ka waxayso. inta ayaan kaga soo degaynaa bowler. for example waxaan arkaynaa maanta shay kale oo la dhaho arc-iga muxuu tahay. for example carpet waxaad sameyn rabtaa albaab oo kale. for example albaab baad rabtaa inaad sameyso ka soo qaad albaabkaagu yahay width-giisu 1 dhererkiisuna 2 yahay enter kan oo kale aad rabtaa dadna in yar arc waxaad rabtaa radius-kiidu yahay matalan ka soo qaad maxaan dhahay 0.20 oo kale. okay 0.20 gaas oo kale uu yahay aad rabtaa right click enter dadna aad timaado. okay arc wuxuu ku leeyahay arc specify start point-igi. okay haye second point-igeenuna kan buu noqonayaa. okay haye third point-igeenuna ka dadna waad aragtaa inuu soo qabtay oo albaabada masaajidada iyo waxyaabahaas ayaad badan ku samaysan karaysaa. dadna aad iminka intaan aad ka samayso. okay for example cap trada explore dadna aad kan iska saarto oo offset oo kale matalan geliso 0.45 oo kale ama wada maxaan dhahay tiradii aad haysto. for example 1 baan iska geliyay dhinaca. okay dhinacan oo kale aad buu uga durkay dhinacan oo kale. okay sidaas offset aad 0.5 geli doodii baa ii shaqeyn lahaa aniga hadda waxaan rabaa inaan albaab buuxa ku sameeyo. okay intaasan kaga bixi doonaa cashirkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.